balse dhagdheer ayaa soo booday oo xaggii orgiga u soo oroday. Gabadhiina inta iyadoo soo oroday ay hooyada dhagdheer is hortaagtay, balse inantii yareed intay dhagdheer kala tuurtay ay soo ag istaagtay orgigii. Orgigii intuu san kala raacay meeshii ay ku jireen oo ay ku dhuumanayeen gabdhuhu, ayuu damcay inuu xargaha goosto oo hablaha eryado. balse gabadhii yareed ayaa tiri, hooyo waxaan sheeko ku maqlay in haddii orgidu qaylada joojin weyso ay wadkoodii arkayaan, ee inta uusan naga baqtin orgigu aan inoo bireeyo oo aan inoo qalo hooyo orgiga. dhagdheer ayaana ugu jawaabtay, hooyo gabadheedii ma runtaaba? inantiina waxay tiri, hooyo waa runtay. waa yahay ee inoo qal ayay tiri dhagdheer. gabadhii orgiga ayay gowracday. hilibkii intii dadka ahayd hooyadeed ayay siisay, intii caadiga ahaydna iyada ayaa la hartay. dhagdheer ayaana ku tiri, hooyo xaydha soo hadha ii shil, dhegti dheereed ayaan ayaanta wax ka maqli la'ahaye si aan ugu yara shubo. markaasay gabadhii halkaa fursad ay ku dili karto hooyada dhagdheer ka raadisay. xayrta ayay shiishay oo xayrta oo kulul saliidna isku beddeshay ayay dhagdheer oo markaa huruda khowrinisana dhegti dheereed kaga wada shubtay dherigii oo dhan. dhagdheer ayaana soo booday iyada oo qaylinaysa. markaasay istiri banaanka u carar, balse waxay ku turunturootay dhagax weyn waxayna ku dhacday dabkii. halkaas ayayna ku dhimatay dhagdheer. gabadhii waxay u tagtay gabdhihii oo ku dhuumanaya meeshii iyada oo ku heesaysa, dhagdheer dhimatay yaa roobay. balse gabdhihii ayaa u qaadan waayey waxa dhacay.